بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا إذن سلامي دمان ولا له كحيرا بيج كان ومركل إيبوك اللي هو مقدر 4000 essential English words. وحنكو قد جرنا بوكي لبعض waxaan maanta ka bilaabi doonaa Allah hadduu raali ka noqdo cutubka 25 alaaba cutubka waxaan ku baranaa 20 erey. 20 ereyga ugu horeeya maanta wuxuu noqon doonaa admit, create ama ogolaansho shay inuu sax yahay ayaa admit la yiraahdaa. qeexida waxaa lagu qeexayaa to admit something, shay inaad markaas qirtaa means macnaheedu waxa waaye to say inaad tiraahdaa that shaygaasi it is true inuu yahay mid saxan. tusaale waxaa leeyahay I had to admit waa inaan qiraa that markaasi I stole inaan xaday his idea, fikradiisa inaan ka xaday fikradu isiga lahaa ama ganacsi ha noqoto ama shay oo soo ixtiraaqay ha noqoto inaan xaday ayaan qiraya ayuu yiri. ereyga waxa waa bin waa baaldi ama siilad qashinka ama cuntada lagu guro ama lagu shubo ayaa waxa la yiraahdaa bin la yiraahdaa. qeexitaanku waxa leeyahay a bin is a container waa weel that kaasoo holds haya things shayada. He put wuxuu dhigay his trash qashinkiisi in the bin, baaldigii ayuu markaasi ku shubay ama ku guray. bowl waa baaquli baaquligu is a deep waa mid markaasi qoto dheer, round dish markaasi saxan wareegsan, dadkaasoo holds markaasi haya food cunada oo ama liquid dareeraha. waxaa la yiri waxa waaye baaquligu waa shay wareegsan, shaygaasoo markaasi hoos u dibicsan kaasoo lagu shubto cunada iyo waxyaabaha dareeraha ah. tusaale waxaa leeyahay I ate a bowl of cereal, waxaan cunay markaasi badar, markaasi baaquli badar ah ayaan cunay for breakfast, waxaan u cunay quraac ahaan. cabin waxa weeye cariish ama guri yar ayaa cabin la yiraahdaa. cabin waxa waaye markaas qeexitaanka is a small house waa guri yar made of wood ee laga sameeyay markaasi alwaax. tusaale waxaa leeyahay my grandfather awowahayga owns wuxuu leeyahay small cabin qori yaro cariish ayuu leeyahay in the country wadanka ayuu ku leeyahay. ereyga waxa waa cash, lacag cadaan ah ayaa waxa la yiraahdaa cash. lacagta cadaanka ah ayaa cash loogu yeeraa. cashku waxa leeyahay is money waa lacag in the form u samaysan of a paper warqad ha noqoto or ama coins ama ha noqoto markaasi mid ah shilin ah. tusaale waxaa leeyahay I was able waxaan awooday to save up inaan keensado enough cash lacag markaasi ugu filan oo cadaan ah to buy saan u iibsado my mother's gift waxay hooyaday siisay. ereyga waa criminal, dambiile ah. criminal waa dambiile. dambiile is a person waa qof kaasoo dhaas sameeyay something shay against kasoo horjeeda ama lid ku ah the law sharciga. tusaale waxaa leeyahay the police made sure waxay xaqiijiyay the criminal in markaasi dambiilihii could not move uusan dhaqaanji karin his hands gacmihiisa. ereyga waa dowsan ayaa loogu dhawaaqa ereygaas. dowsan macnaheedu waxa waaye xirmadaasoo ka kooban 12 shay ayaa waxa la yiraahdaa dowsan la yiraahdaa. sidoo kale ama darsin waa la yiraahdaa dowsan, darsin kana waa la yiraahdaa dowsan. darsinku is a group of 12 things waa shay 12 ka kooban waa. tusaalaha my mom hooyo brought waxay soo iibsatay home guri a dozen of donuts, nooc ka mid ah markaasi doolsho oo 12 xabo ah ayay noo soo iibsay as anaga inoo soo iibisay as waxay noo soo iibisay markaasi 3 si ay markaasi noola macmiil tanto. waxaa leeyahay hooyo
brought waxay keentay home guriga a dozen donuts 12 xirmo oo markaasi oo duulsho ah for us aynaga inoo keenta as waxay noo keenta 3 si markaasi noola macmiiltanto elder ugu weyn waa an elder is a person waa qof kaasoo older ka weyn than the people dadka around him ay ku hareeraysan yacni ku hareeraysan maxaa kula qoyska inta kula qoyska qofka ugu weyn ayaa elder la yiraahdaa waxa leeyahay uncle Ray ninka la yiraahdo adeer Ray is waxa waay my elder waa kan noogu weyn waa adeerka qofka noogu weyn oo soo sidaadarta I always mar walba tara waxaan isku dayaa to be respectful inaan qadariyo facial yani la xiriir wajiga waa facial wax walba la xiriir wajiga ayaa facial lagu yeeraa if something hadii shay is u yahay facial mid la xiriir wajiga id shaygaasi related wuxuu la xiriiraa to person's face qofka wajigiisa salaah waxa leeyahay markaas I could tell waan sheegi karaa from his facial features macnaha wajigiisa xubnaha wajigiisa waxaan sheegi karaa that markaas he was angry inuu xanaaqsan yahay xubnaha wajigiisa waxaan sheegi karaa in markaasi uu xanaaqsan yahay erayga xawaa fancy waa boot ama derbi ayaa fancy la yiraahdo fancy and boodka is structure muuqaal waay around ku hareeraysan house guri or ama field mise beer ku hareeraysan waay tusaale waxa la magac farmer ninkii beerley ahaa boot wuxuu dhisay fancy boot ayuu dhisay soo daadsi markaasi no one ku walk on her field aysan u soo galin beerteeda page kale ayaa u gudbaynaa oo markaasi 152 erayga ugu horeeyna wuxuu yahay inspire waa ku boorin ama ku dhiirigelin to inspire means waxa to make person waa inaad qof ka dhigtaa wants to do something inuu shay u sameeyaa salaah waxa leeyahay I was inspired waxaan ku dhiirigeliyay to write inaan qoro a poem gabay after watching markaan daawaday kadib the sunrise qorraxda u dhacaysa anigu markaas wuxuu leeyahay inspired waxaan isku dhiirigeliyay to write inaan qoro a poem markaasi gabay after watching markaan daawaday kadib the sunrise qorraxda u dhacayso erayga waxa waa mayor waxa waay in yar waa aanan badnayn ama muhiim aan ahayn mayor la yiraahdo wax muhiim aan ku ahayn waxa ugu yeeri kartaa mayor sidoo kale wax markaasi in yar iska ah oo aan badnayn waxa waay mayor when something hadii shay is mayor oo yahay mid iska it shaygaas it is small waa mid yari or am not important muhiim ma aha tusaale waxa leeyahay markaasi we lost it waxaana laga badiyay the game ciyaartii by a mere 2 points laba markaasi waxaana looga badiyay dhibcood erayga Hawaii neat nidaamsan ama si fiican loo hagaajiyo ayaa wax la yiraahdaa neat if something hadii shay is u yahay neat mid hagaagsan it shaygaas very clean waa mid markaasi nadiif aad u nadiif ah or organized well si wanaagsan loo hagaajiyo su'aalo waxa leeyahay markaas my sister abaayada always marwalba keeps waxay ilaalisaa her bedroom qolkeeda jiifka very neat inuu yahay markaasi mid aad u nidaamsan occasion munaasabadu is a time waqti when waqtigaasoo something shay important happiness ay dhacaan waxyaabo muhiim ah su'aalo waxa leeyahay graduation qalin jabinteedii wuxuu ahaa an occasion munaasabad to have a good time lagu qaatay markaasi waqti fiican penalty waa ganaax ama ciqaab ayaa waxa la yiraahdaa penalty-ga is a punishment waa ganaax given uu bixiyo ama markaasi la dul saaro when someone markii qofi breaks uu jibay rule sharci ama law isku mid I had to pay waa inaan bixiyaa $100 waa inaan bixiyaa $100 ayuu yiri penalty oo markaasi ganaax ah for backing inaan markaasi aan gaariga dhigtay in the wrong spot meel markaasi qaldan erayga waxa root edab waa edab daran ama edab daro qof edab daro wax sameey ayaa root la yiraahdaa qixitaanku waxa leeyahay when someone hadii qofi when markii someone qofi is root oo yahay mid edab daran they iyagu are mean waa kuwa axmaq ah ama not polite ama aan edab lahayn waay su'aalo waxa leeyahay marka dajil daran caruurtii at the bus stop ee joogay boostejada weer waxay ahayn very rude kuwa edab daran ay ahaayeen erayga waxa waa settle
waa degid in markaasi go'aan laga gaaro shay ama go'aankeeda la soo saaro ayaa settle yiraahdaa. tusaale hadda anaga go'aan waxaan haysanaa oo ah in 6 book uu ka kooban yahay 4000 essential Englishka inaan wada dhamaysano. settle waa marka go'aan ku gaarid waa reach agreement waxaan ku gaarnay markaasi go'aan ku gaarnay inaan dhamayno. settle waa marka settle waxyaabahaas kula leeyahay karaa. settle problem waa kaasa settle go'aan ku gaarida problem means waxa waa to end inuu dhamaado it markaasi problemkii uu dhamaado by found in loo helo solution xalad. macnaha maxaa dhamaado problemkii aan u qabnay markaasi 6 book inaan dhamayno maxaan xal ugu helnay inaan dhamayno xalkeeda saas waa. tusaale waxa la it took waxay qaadanaysaa 3 of our best executive all day waxay qaadanaysaa markaasi 3 ilaa iyo markaasi hal maalintii oo dhan ay qaadanaysaa to settle inaan hagaajino the problem caqabada. it took waxay qaadatay andhano 3 of our best executive 3 kamid ah markaasi maamulkii ugu sareeyay all day maalinta idil ay ku qaadatay to settle inay hagaajiyaan ama markaasi dejiyaan the problem caqabada. vehicle waa gaari. a vehicle marka gaarigu is a thing waa shay dadkaasoo moves people dadka kaxeeya or ama things shayada qaada to another place meel kale geeya. tusaalaha waxaa leeyahay markaasi a very doonti is a bicycle waa markaasi a very doontu is a bicycle waa markaasi gaari dadkaasoo takes qaada people dad ay qaada from one island waxay ka qaadaa markaasi hal jasiirad to another jasiirad kale ay geeysaa. ereyga waa wallet boorso jeebeedka ayaa waxa la yiraahdaa wallet. inta badan waxaa jirto boorso yar oo loogu talagalay in lagu rito sawiraanta lacagaha iyo waxyaabaha yariiska inaad ku rito kadibna jabka asii galasto ayaa wallet la yiraahdaa. wallet marka is a thick thing waa shay dadkaasoo holds at markaas ku qaadan karto mari lacagta and fits misna ku haboon in the pocket jab ku haboon. tusaale waxa la markaas I keep my money ani lacagteedu waxaan ku kaydsadaa in the wallet jabka. ereyga waa yeel qaylin ama ku qaylin ayaa waxa la yiraahdaa yeel. qof inuu ku ganuunaco oo waliba ganuunaciisa kor uu noqdo ayaa yeel la yiraahdaa. tusaale kale hadii markaasi tababar ciyaar leelinayo hadii kooxdiisa laga badiyo oo markaasi farmasuunki u dhimaana wax kale ay ku ciyaaraan wuxuu sameynayaa inuu ku qayliyo markaasi kabtankii ciyaartoydaba taasoo ku canaanaa inay qala sameeyaan. canaantaas iyo qaylidaas ayaa yeel la dhihi karaa. qeexitaanka waxa leeyahay marka to yell is to say waa inaad tiraahdaa something shay very loudly aad u tiraahdaa. salaam kanay the coach tababarihii yelad wuxuu ku qaliyay his team kooxdiisa for their poor performance bandhigoodii xumaa ayuu ku qeyliyay kaasaba. halkaas waxaan u gudbaynaa 20kii eray waxaan u gudbaynaa sheekadii la xiriirtay 20kaas eray oo markaasi noogu diyaarsan page-ka 155. eray sheekadan waxaa loogu magac daray the criminal dambiilihii. nin ayaa had been in a jail wuxuu ku jiray xabsi because sababta ugu jiran waxa waa he stole wuxuu xaday things waxyaabo ayuu xaday. the criminal dambiilihii never felt muusan dareemin bad inuu arin xun u sameeyay. one day maalin he escaped wuu baxsaday and ran wuuna orday into the woods wuxuuna ku orday meel keen ah. he found wuxuu helay a cabin cariish ama qol yar ayuu helay with a fence leh markaasi bood leh. the cabin qolkaas cariishka ah ee yar wuxuu ah very neat mid aad loo hagaajiyo aad u nidaamsan. inside gudihiisana the criminal found wuxuu ka helay dambiilihii a bowl of fruit baaquli markaasi miraah ayuu ka helay. sidoo kale wuxuu ka helay a bottle of milk dhal caano ayuu ka helay. sidoo kale wuxuu ka helay a dozen eggs xirmo markaasi oo sidoo kale ukuma ayuu ka helay ama markaasi
waxaan ugu yeeri karno darsin ukuma ah ayuu ku helay oo markaas 12 xaba. He ate wuxuu cunay the fruit mirihii ayuu cunay, and drank wuxuu cabay the milk caanihii, but laakiin the eggs ukumadii smelled waxay u soo uraayeen funny si markaasi qosol ay soo shiirayeen. So that he put them wuxuu geliyay ama uu dhigay markaas ukumi in the trash bin baaldigii qashinka ayuu dhigay. Soon durbaba he heard wuxuu maqlay a sound jabaq of markaasi bicycle motorka markaasi gaari ayuu maqlay codkeeda. An old man nin waayel ayaa came in soo galay qolkii, and so wuxuuna arkayba the criminal dambiilihii. The old man ninkii waayelka ahaa yeelad wuxuu ku qaliyay, why are you in my house? gurigayga maxaa u timid? gurigayga maxaad u timid ayuu ku qayliyay. The criminal ninkii dambiile ahaa light ayaa been wuxuu ku yiri, I'm a policeman. ninkii booliska ayaan ahay ayuu yiri. Si been ayuu ku yiri. The old man ninkii duq ahaa replied ayaa wuxuu sin ugu jawaabay, I am your elder. ana adigu kaawina ayuu yiri. You can't fool me. nacas ma iga dhigi kartid. You are the criminal. waxaa tahay dambiilihii. The criminal is facial. ninkii markaasi dambiile ahaa wajigiisa expression ayaa markaasi qeylo la bika maxuu noqday very sad mid markaasi aad markaasi u murugaysan. He admitted wuxuu qiray that markaasi he was markaasi a criminal dambiilihii. He said wuxuu yiri, I'm sorry aan ku xumahay. It was rude waxay ahayd mid edeb daro for me aniga ayay igu ahayd to come inaan imaado on your home gurigaaga. Please fadlan take qaado the cash lacag markaasi oo cadaan ah iga qaado ayuu yiri from my wallet. waxaadna ka qaadataa boorsada jeebgishigayga ayaad ka baxsan kartaa ayuu yiri. It lacagtaasna is waxa waaye mere amount waa maxaa waaye lacag iska yar waaye ayuu yiri, but laakiin it lacagtaasi will settle waxay markaasi hagaajin doontaa ama markaasi habeen doontaa ayuu yiri. hagaajin doontaa ama go'aamin doontaa ama sidoo go'aan ka gaari kartaa or problem dhibaatadeen isfaham la'aantiin ay hagaaji kartaa ayuu yiri. The old man ninkii duq ahaa said wuxuu yiri, I do not want marrabo your money lacagtaada. I just want waxaan rabaa oo kaliya to inspire. I just want kaliya waxaan rabaa to inspire inaan kugu booriyo ama kugu dhiirgeliyo adigu to be good inaad noqoto mid wanaagsan. There will be no penalty ganaxna ma jiri doono for taking my food aan cunadeedii kaaga qaato markaasi. On this occasion munaasabadani the criminal ninkii dambiiliha ahaa realized wuxuu ogaaday that markaasi he bad been a bad inuu nin xun yahay ayuu ogaaday. He listened wuxuu dhageystay to the old man ninkii waayilka ahaa and never stole muusan xadin from anyone ever again. markalena cid kale muusan ka xadin wax markaasi waas dad kale kama xadin. halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa cashirkeenii maanta. salaamullaahi calaykum waraxmatullaah.